Assalaamu calaykum. Waa maxay sirta guusha? Waxaa jirta ilaa 7 qodob oo aad ku gaari kartid guul wax ku ool ah. Balse intaan u gudagelin qodobadaas, waxa aan ka sheekaynaynaa sheeko yar oo xikmad leh. Sheekada ayaa ku bilaabanaysa sida tan. Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah kaasoo aad u jeclaa inuu mar u noqdo qof guulaystay, balse ma uusan garanayn sida uu ku guulaysan lahaa iyo wax laga doonayo in uu suubiyo si uu u gaaro guushaasi. Maalin ayuu la kulmay nin oday ah oo waayo arag ah, noloshana wax badan ka soo arkay. Wiilkii odaygii waayo aragga ahaa ayuu la sheekaystay, xogaa kadibna waxa uu weydiiyey su'aashii maskaxdiisa ka dhex guuxaysay oo ahayd, waa maxay sirta guusha? Ninkii odayga ahaa ayaa waxa uu ku yidhi wiilkii, waan kaaga jawaabayaa ee bari in isku kaykeen webiga qarkiisa. Sidaas ayaa lagu ballamay oo lagu kala tagay maalinkaasi. Maalintii ballanta markii la gaaray oo labadoodaba ay soo xaadireen webiga, ayaa ninkii waayo aragga ahaa ku yidhi wiilkii, inakeen aan biyaha galne. Biyihii ayay galeen. Markii ay bartamaha webiga tageen, ayuu ninkii weynaa madaxa ka qabtay wiilkii yaraa, isaga oo hoos biyaha ugu riixayo. Wiilkii xaaladii ayaa ku adkaatay ilaa indhihii ay casaadeen. Wax yar kadib ayuu sii daayay ninkii. Wixii ugu horreeyay uu sameeyo wiilkii yaraa ayaa ahaa inuu madax kor u soo qaado una neefsado. Ninkii odayga ahaa ayaa wiilkii weydiiyey, markii aad ku jirtay biyaha oo aan madaxa ka hayay, maxay ahayd waxa aad ugu jeclayd inaad hesho waqtigaasi? Wiilkii ayaa ku jawaabay, hawo si aan u neefsado. Odaygii ayaa yidhi, haddaba su'aasha aad shalay i weydiisay jawaabteedii waa tan. Waxa aad doonaysaa inaad guulaysato ilaa aad u raadiso guusha sida aad u raadinaysay hawada marka aad biyaha ku jirtay, kuma guulaysanaysid. Sirta guushana waa taasaa. Inaad guul gaarto uma baahna inaad garab ka sugto ruux kale, waa inaad garataa inaad garab isku tahay oo aad keligaa wax qabsan kartid. 7 qodob ayaa kaa saacidaynaysa inaad guul gaarto. 1. Waa dadaal badan. Midda 2 oo ah dulqaad. Midda 3 oo ah dabeecad wanaagsan. Midda 4 oo ah dabacsanaan. 5 oo ah daacadnimo. Midda 6 oo ah deeqsinimo. Midda ugu dambaysa oo ah dad la socod.